عاوة وحان هالكان السوون نمت إنان odayaashii ciddii ergooyinkii noo yimidna ku sagoontino xildhibaanada la doortayna ay bilaabaan shaqo inay bilaabaan oo ay wax qabtaan ay gartaan in mas'uuliyad fuushay marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa xildhibaanada dhabta ee galmudug waa idinka madaxweynaha dhabta ahina waa aniga sidaad ogtihiin adduunka haddaan sharci la isticmaalin wixii ka soo haraa waa fawdana uma baahnin aniga waxaa lay doortay 3dii bishii shanaad 2017 maalinta berrito laga bilaabo waxa ay hartay 15 bilood maalintii 15 bari dhammaato waxaan idinka codsanayaa ciddii aad doontaan idinkaa dooranaya ma aha xildhibaano imaanayo kale adinka waqtigiinu waa 4 sano sida dastuurku sheegayo ciddii dastuur khilaaftana ayada u taal waxa la dhoodhoobahayo oo meelaha lagu hayana wax shaqaynaya maaha waxaan rabaa inaan xildhibaanada baraarujiyo odayaasha baraarujiyo dhalinyarada baraarujiyo oo aan ku baraarujiyo in ay yihiin kuwa xaqa iyo dariiqa iyo sharciga ku taagan wixii sharci daraa ninkii sameynaya u taal waana ku qayboobi doonaa insha allahu tacaala galmudug sidaad ogtihiin waxaa la aasaasay 2006 maanta waxaa laga joogaa 14 sannadood dadku waxay moodaan magaca inuu hadda dhashay hadda ma dhalan laakiin nasiib wanaag sanadadii 2014 ayaa waxaa lagu guulaystay in la kaamilo oo la isku daro labada gobol labadii gobol oo la isku daray wax badan baa ka soo kordhay wax fiican baa ka soo kordhay aniga madaxweyne iga horeeyay runtii kuma aanu guulaysan inuu galmudug 6 degmo iyo barbaa xor ah intii kala shabaab haysta waa 10 degmo waxa uu joogay asaga 3 degmo kaliya aniga waxaan fakaray markaan imid inaan dib ugu laabto oo horta wax kasta oo kala shaqaa inta joojiyo aan raadiyo in galmudug la isku daro oo ahlu sunna la heshiiyo ahlu sunna waa ku guulaysanay insha Allah taala ilaahayna waa nagu garab galay gaalka ayaad ogtihiin wixii dhibaato ka socday عاود waxaan tagay waxaan maleeyaa bishii May oo lay doortay dhexdeedii way ahayd 3dii baa lay doortay waxaan tagay 17 ayadoo 6 meelood u kala xiran ayaan tagay nasiibkayga iyo barakadayda iyo mooji waxay tahay galmudug haweenkaas xawada soo furantay ilaa markii dambe aniga madaxweynuhu aan tagnay tiyo isku furan nabada gaalka ay wada ogtihiin inta sanadooda ay dagaal ka soo dhibaatada waxa aniga foxkaygu ahaa oo dhan anigu nin weyn baan ahay Soomaaliya wixii ka soo ka dhacana waan soo joogay wax walbana waxaan ogahay ruudka iyo meeshay ka yimaadeen iyo sida ay ku dhamaan karaan halkeeda Soomaali iyo gaar ahaan reer galmudug xoog lagu caburin karo si kasta dilay lagu caburin karo waa dad isku kalsoon waa dad haday geedooda fariisaan heshiin kara waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa haddana fidnaynaya oo dhibaatada nagu wada oo aan u jeedno inay meel daran nagu celinayaan ilaahay si naga yiraahdo ilaahay oo si naga dheh ilaahay oo gacan naga sii ilaahay oo nabad waarta nasiih ilaahay oo kuwa maaragtay khayr beelayaasha ilaahay oo dhibtooda naga hay waxa kaloo xiga saad ogtihiin halkan gobolada 2017 bishii labaad 18 bishii labaad waxaan go'aan baan wada gaarnay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka sharci baan sameynay sharcigaas wuxuu lahaa ciidamada nooc kasta ay yihiin haday yihiin military haday yihiin police haday yihiin nabad sugid haday yihiin asluub iyo nooc kasta ay yihiin
marka ay joogaan gobolka ay joogaan ayay amar ka qaadanayaan federaal amar ka qaadan maayaan taliyaha la keenayo inuu noqdo taliye la isla ogyahay iyo taliye raalli la isaga yahay galmudug ama goboleed kasta ciddii uu ka dareemo inaysan la shaqaynin wuxuu xaq u lahaa inuu bedelo waxaa nasiib darro ah xasan cali khayre markuu halka yimid inuu dhallinyaradii iyo ciidamadii nooc kasta ay yihiin afka ugu tiray kulligood inay federaal yihiin war ciidamada caawa joogaa federaal waxaa la yidhahdaa ciidamo inta lasoo qoro gobollada iyo degmooyinka laga soo qoray laysku daray kuwaasaa federaal la yidhahdaa federaal lama yidhahdo ciidan gobolkii laga qoray jooga gobolkaa leh waxaan uga digayaa oo aan rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada jooga kulligood waa ciidamo galmudug wax ciidan oo federaal la yidhahdaa ma jiraan haddii ay mushaar ka qaataan mushaarku waa xaqoodii ma aha in dowladda galmudug waxay ka mid tahay dowladda federaalka ah qayb bay ku leedahay waxay hayso waa qaybtoodii ee ma aha lacag hayriya farmaajo jeebkooda ka siiyaan ma waa qaybkoodii xaq bayna u leeyihiin waana yeelan doonaan waxaan uga digayaa oo jeclaha inaan u sheego yaan laydinku dumin gobolkiina caawa dhuusamareeb waxaa ka taagan dhibaataa ka taagan meel walbana waa imanaysaa allihiin hadduu alla yahay ka waantooba in gobolkiina laydinku dumiyo dadkiinana halaynina guryihiinna ha duminina yaan laydin adeegsan oo laydin adeegsan xaqdarro lagula kacahayo galmudug intaas ayaan jeclahay dhammaan ciidamada inaan u sheego ayaga ayaana xaq u leh mushaarkooda xuquuqdooda garaadahooda ayagaa leh ma aha mid dowladda federaalka ay siiso gobolkaa siin kara ayaguna khasab bay ku noqonaysaa inay aqbalaan laakiin haddii gobolkii ayagii laysku diro oo la yidhaahdo gobolku cadow idiin yahay ogaada waxa laydinku diraya waa gobolkiina iyo dadkiinni weeye waxa laydinku ugaarsanaya oo inta meel laydiin diro leeyahay soo qabta ama soo dila ogaada waa dadkiinni waa dalkiinni waa gobolkiinni berrita waxaa ka socota doorasho dhuusamareeb sida la leeyahay insha allah waxay noqon doontaa doorashadii cadaado lagu doortay baasto midka la dooranaya waa kii baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa kii qaabilay oo maxamed xaashi oo markaa taagnaa meesha gacanna waa kii kaloo joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono weligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowlad ka kalkisto waa caadi waa caadadooda weeye annaga dowlad baan nahay madaxweyne waa jooga baarlamaanka waa jooga cid wali waa joogtaa ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan xarunta xaafisooda ka shaqaysa oo yidhaahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walweligiin ma maqasheen ilaah baan idinku dhaarshay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoos ha loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhegaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladdu hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alor dadkana maadigaa leh waa dhibaato weeye waxaan odhan lahaa dowladda federaalka arrimahaas haddaysan ka waantoobin way ku ceeboobaysaa kuraasta ay fadhiyaan bay ku noqonaysaa inay laftoodu khatar ku galaan waxaa kaloo xiga waxaan idiin sheegaya adduunku sharci buu kala socdaa galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay dowladda federaalka ay dastuur bay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulligood dastuurkaasi ku joogaan ikhwaanayaalow ninkii dastuur sharcigii iyo dastuurkii lagu doortay ninkii ku tunta oo tuuraa asagu ma haysanayaa meeshaad u malaynaysa waa maya hadduu asagu diido sharcigii lagu doortay cid ku ixtiraamaysaa ma jirto farmaajo madaxweyne maaha ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare hadday sharciga diidaan intaasay ku yihiin waxaan u baahannahay inay faraha nooga qaadaan gobolkayaga annaga iyo ahlusunna waljamaaca annagaa heshiinay annagaa shalay isku tagnay berrina annagaa isku tagayn odayaasheedii ikhyaarteedii dhallinyaradeedii baarlamaankaygii wasiiradeedii kulli waa joogna annagaa heshiinayna annagaa isku tegayna annagaa wax ayaga samaysanayna allahooda duco leeyahay faraha naga qaaday
waxay doortaan oo caawa anaale la yidhahdaa ma jirto hore bay u dhacday nimanka xildhibaanada ee sanitarada ah hadda dhooban dhuusamareeb waa kuwii cadaalad inta yimid boobay kuraasta in badan oo ka mid haddana waxay rabaan inay kuraasta soo socoto 2021 ka boobaan warmaba gaaraysaan adinkii madaxdiinuba haddii aynaan nidaamka ilaalin iyo sharciga ummaddu way ka hor imaanaysaa waa la idinku kacayaa xamar ayaa maanta aad ogtihiin waxa ka jira asagaa kacsan xamar baynaan ka badbaadayn haddaynaan gobollada ka badbaadayn haddaad gobollada ka badbaadaan xamar baynaan wallaahi ka badbaadayn mana shaqaynayso sida ay ku socdaan wax shaqaynaya maaha daraad kaamirooyinkii jidadka lagu xiray oo ay ku baxday malaayiin doolar dhowr saacadood baa shabaab ku burburiyey kulligood xataa kii madaxtooyada horteeda ku xiran waa jabiyeen ayadoo loo jeedo barqadii 3 saacadood subaxna way jabiyeen war ilaahay baan idinku dhaarshay ciidamadii la rabay inay ilaaliyaan kulligood dhuusamareeb joogaan magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo waxaa jooga ugu yaraan 4,000 oo ciidana population ku nool 5,000 7,000 ka badan marka waxa weeye halkii qof oo jooga dhuusamareeb askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tanow ma ilaalin doonaa mase wixii daraadyaasha ka socday baa rumoobi doonaa aniga ma garanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdana ay noqoto kuwa dhibka wada inay ku dhacday aysan dadka masaakiinta sababsan waxaa la yaab leh oo mucjiso ah wasiirka arrimaha gudaha aniga markii la lahaa waxaad ku wareejisay xil kuma wareejinaan wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad magaceeda wax taqaaniin wakaaladda haddii qofku wixii adu wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasbantahay inaad kala soo laabatid caawa qarafaan iyo wuxuu la fadhiyaa dhuusamareeb waa baadil waxa uu dhisay waa baadil caawa wuxuu ku soo qoray maaragtay facebook aan daayta ku arkay waxa weeye wuxuu yidhi aniga waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajaynaya inuu la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto 4 bilood ka hor baan kala laabtay wakaaladdan siiyey wax allaaliya wixii ka dambeeyey saacaddaas wuxuu qabtana waa baadil dadkuna waa ogyahay ummaddu waa og tahay beesha caalamkuna waa og tahay waa nin weyn waa ninkii inta raadiya tv hor istaagay yidhi waa khiyaamaynayna waxaan uga jeednay inaan magaalada ku gallo been baan u sheegnay war nin weyn hadduu been sheego inuu iska tagaa wanaagsan waa ceeb waxyaalaha qaarkood marka waxaan leeyahay walaalkay oo ka asluubaysa waxyaalaha qaarkood berrita waxaad soo saartaana waa baadil mana shaqayn doonaan insha allah dadka yaan maaragtay lagu wacyigelin waxyaala khalad ah hadda sheekh ibraahim miduu sheegayay waa la mudaaharaadaya waa cali iyo inta qaxooti la soo kacay ma shaqaynayso reer galmudug way yaqaanin waxay samaynayaan dalkoodii bay joogaan dadkoodii bay la joogaan waxaan idiin sheegayaa galmudug waa gobolka soomaaliya ugu qanisan walluusan u jirin gobolka qanisan beeray leedahay cali bay leedahay ma jirto waa gobolka ugu qanisan ugu batroolka badan ugu macaadinta badan ugu xoolaha badan wey dadkeeduna ay yihiin dad shaqo yaqaan oo haddii la isku duwo shaqaysan kara dekada layidhahdo waa laydiin dhisaa waa been waxba kama jiraan xasan cali khayre wuxuu sheegay welig run ma sheegin waa been batroolkii daraad la saxiixi lahaa isagaa diiday ayadoo la raba in la saxiixo yaan hobyo laga godin daraaddeed wuu diiday warqad inta u qoray wasiirkii dib buu u dhiga intaasna waxaa weeye axmed ducaala meesha joogee amuu ogaadaa xataa anugu waa ka badiyaa hortiisaan ogaa gadaashiisana waan ogaan doonaa 8 bilood u hartay hadduu dhammaystu nasiib leeyahay walaalkay si hays yeelo inuu dariiqa fiican raaco ayaan u wanaagsan waxaanu dhisaaya iyo waxaana ka tanasulo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin